مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا kusoo dhawaada xarunta kanaba ujeedada maanta aan iskugu imaan meeshan qof walba uu ka dharagsan yahay waa maalintii qornimada iyo midowgii koonfur iyo waqooyi waddankeena Soomaaliya marka hore waxaan leeyahay kusoo dhawaada mar labaadna waxaan idin leeyahay hambalyo ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan ku furfurano heesta astaanta calanka noo qaadi doonaan maxaa lahay gruub dhalinyaro iyo iskugu jira odayaal waxaan leeyahay kusoo dhawaada هذا واحد مسؤولين على هاي أويس يو هش ودنيا
كيلو كدي بوليس وعن هلو تكنبو كدير سدو meesha ku dhegana loo sameeyay waxa sameeyay la dhooyaasi shibano muqdisho joogo xaqiiqda maxamed khalifa saaray musiga cali bulaya tumayo anigana waan qaadayaa madaxweyne daacadiya dadkeena u baarlamaan dejiya sharcigan helnay alloo loo daweeye madaxweyne daacadiya dadkeena u baarlamaan dejiya sharcigan helnay alloo loo daweeye dowladayna ugu kamidaan damka yeelo kudii boliis wacan helo dadkuna uu ku diirsado ilaahowdayno duqaaqadane ego dowladayna ugu kamidaan damka yeelo kudii boliis wacan helo dadkuna uu ku diirsado إن شاء الله وحن حضرنا إن شاء الله ميكروفون كلوعي دونا ولكن شيخ محمد حسن ونوضح وربحنا دونا إن شاء الله حلقي تاريخي قوة نبضون كيوم حلاه حرية يوم فائدة إلى هي وحيانا عن كذا حل فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووري وعن الله هاي همبليو waxaan idinkugu hambaliyeynayaa si kaliya laabo oo farxad iyo reereyn ku jirta munaasabadda 53 guurada ka soo wareegatay maalintii aynu hadanay xorriyaddii ra'iisul wasaaraha ka soo noqday cabdirashiid dowladdaas ayaa dhalatay dib baa waxaa loogu soo noqday xamar dib baa noloshii dib ay u soo noqotay waxaan la hilmaami karin dadaaladii ay samaynayeen dowladaha dariska ah dadaaladii ay samaynayeen igad khaasatan jabuuti marna lama hilmaami karo marna la hilmaami doono dowladdaasi sheekh shariif iyo gruubkii la shaqaynayay iyo kooxdii la shaqaynaysay waxa ay qabteen wax kuwii ka horreeyey aysan qabanin laakiin iskama ay qabteen haddaysan jiri lahayn kuwii ka horreeyey shaqo ay qabteen waxay qabteen 4 arrimood oo ah constitutionkii waddanka in la qoro oo la diyaariyo waxay qabteen waddanka amnigiisii in taqriiban 50% in ku dhow gacanta lagu dhigo waxay qabteen in ay diyaariyaan baarlamaankaasina markii ugu horreysay uu dalka gudihiisa ku doorto madaxweyne waxay ururiyeen odayaal 800 iyo ku dhawaad ahaa oo xamar la isugu keenay oo soo xulay 275 maanta baarlamaanku uu yahay waxaana ka soo dhashay madaxweynaha halkaas loogu sawiran allah noo xifdiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ka soo dhex baxay ayadoo ay ahayd markii ugu horreysay ay dad baarlamaanteeriyan oo Soomaaliya intay xamar ku shiraan inay dhexdooda ka doortaan qof ayaga ka mid ah ayay noqotay doorashadaasi waxa ugu dambeysay baa la yiraahdaa doorashadii la doorto cabdirashiid cali sharbaake waad garan kartaan 67 iyo inta u dhaxaysay 2012
runtii waxay ahayd wax aad loogu farxo dadaal badan oo laga soo shaqeeyey bay ahayd sheekh shariif iyo tiimkii la shaqeeyey baa mahaddaas iskale khayr allah siiyo allah xifdiyo aynu leenahay meel kastoo tageen dowladdaasaa noo dhalatay waxaa ka horreeyey madaxweynaha doorashadiisa in la doortay guddoomiyihii baarlamaanka professor jawaari kadibna waxaa loo gudbay madaxweynihii la doorto madaxweynihiina wuxuu noo soo xulay ra-iisul wasaare saacid oo halkaasi jira runtii waxay ahayd guul aad u tiro badan ma raba waqti badan inaan idinka dhumiyo mana rabo keliya inay noqoto inaan isxasuusino taariikh keliya laakiin waxaan rabaa inaan isku xiranno dadaaladaasi la qabanayay soomaalidu dadka waa ay caayaan waxna waa ay ka sheegaan laakiin waxaad garan kartaa inay soomaalidu dad fiican inaysan quusanin in dadaal la qabanayay in shaqo la waday 20 sano kadib غير راسي أويس هذا واقعي هسي سنكون جزء من الجارك ولا جبحي لبعض سنة كذب من الجارك ولا جبحي لبعض سنة كذب إن وضعك تحديث الدور شيء كان عليه ذلك عم بأي لكن هذا واحد جري دباتوي ما جري دجالي واحد جري مقرن ساي إسلاميين يدورون لك ده دجالو واحد جري مقرن ساي ضد مقرن الله وضعي دجالو لقيا بقول وحياة نوع عصا لا حريق مجرى وحنا المركب كفيلان عن ضد كفيلان جوجا وهالكان يسوي وإنه يوجانو إنه نهاية برد ضد سومالي لا يراجو ولما خاصة عروضة على الله دولة أهم جري مدحوينيال صوت دورين جري وطن هرمر له وحلوت ريا سومالي جغرافيا مركز نكشة كينو نكويا لا جنس أفريقيا بريغ أفريقيا يكويا لا سومالي ولاية حياة أولاد أفريقيا أيها السا سوماليا ودولكم في عن البيرتكا ودولكم في عن مقرن ساي حولها ودولكم في عن كلونكا ذهب إيو بترولي وحصل ولا شيء ما غانيتا إلا تاي بترول كجرا لكن أيامنا كل كم مرة ولا شيء وطن كل ذهب نله بترول نله كم مرة وولي هاي مركا ترى ضدك بابنا أدوية ترى ضدك جوجا ونقف بدأي هاي هذا إنه إيمان سنو aad ayuu nooga tiro badan yahay waa inuu niraano oo resource-kaas jira iyo dadkan talentiga ee Soomaalida maskaxda iyo caqliga badan sidee la isu waafajiyaa waxaan moodaa inay isdiidan tahay caqligaas jira iyo khayraadkaasi wadanka ka buuxa soo saari lahaa loogana faa'iideyn lahaa inta harteen uga faa'iideyn lahaa annaga odayaasha oo aanu yarahayna dabcan quusan maanta sida wanaagsan ay maxaa taariikhda u soo koobay iyo sida waqtiga uu ilaaliyay aan mahadcelinayna teeda kale waxaan ku sii dari lahaa sheekha in wax adag inaysan jirin laakiin ay u baahan tahay keliya waqti in la siiyo aad u mahadsantihiin Thank you.
marka labaad kana waxa way aad baa ugu mahadcelinayaa iskuulmaadkan ayada sabab ah midaan aad u weyn yoon dhamaantood waxa way nin walba waxa way arrin qeyrada ayuu ka hadlay marka sida uu hadalku ugu miisan waxa way 13kii dhalinyarada ahay bishii May 15keedii u soo halgamay waxay noqotay oo dhibaatada u soo maray in aan qarannimada u soo halgamay in aan nagu dubino waqtiga xaadirka jira marnaba inaan dowlad dhisano xaqiiqda hadaa fiiridid dulmiga la iskugu heelinayo hadaa eegto mararka gaba waa markii ugu horreeyay nin aqoon-yahana oo maaragtay aan qabiil qusayn oo wadannimo yani waddanka inuu soo celiyo yani maaragtay dhibaatada godka uu ku dhaca 22 sano inuu ka soo saaro ugu talagalay haddana waxaa arkayaan in qabiil dabada lagu wato war haddaa dad muslima nahay aan qabiilka ka talasuulno waxa 22 sano baabada waa qabiil waxa ummadaha naga reebo waa qabiil aakhiro wuxuu noo galo ma leh nin walba camalkiisa ayaa hogaaminaya kuwaad imaan soo istaagay wax badan inaan inta ka dhaho makarofonkana aad ayuu ii dhibayaa meel walba ee joogto guul waxaan u hambalyaynaynaa Soomaali meel kasta ee adduunka ka joogto waxaan leenahay sanad wanaagsan ayay noo tahay caawa sanad wanaagsan haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxa kale ah u mahadcelinaynaa dawladeena maanta waxaan leenahay dawlad buuxdo ma yihiin dad ku meel gaara waxaan leenahay Soomaaliyeed u midooba xurnimada iyo Soomaalinimada waxaan ku noolahay waa dhibaato iyo rafaad waana arkaysaa meel walba aan joognay in aan aad ugu liidano marka waxaan leenahay siiba haweenka Soomaaliyeed waa inay calanka kor u qaadaan dawladana taageeraan qabiilkii kulli kale iska saaraan ragana ay ku dayaan mar walba waxa dhibaatada ku seeyo waa ragga laakiin waxa fiican inaan bedelno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتنا وحاي مانيسو gabadheedii yareed ee magaceeda la yiraahdo حرية محمد علي الشيخ عبدي تفضل أنا وحلي ذبحي حرية قصة وحان دشلاتني لحظة بيشة جون هاتنا وحاي مانيسو gabadheeda اللول محمد علي الشيخ عبدي تفضل أنا اللون وحالي وبحي وعند كود بشلون sidoo kale waxa imaan doona wiilasheeda guuleed iyo guhaad oo ayagana sheegi doona waxa ay yihiin meesha ka imaadeen هاي سوالي كلام حكول دوينين أنا ما أقول لك أنا شيء الله والله بالله هو إذا ما لقيت حاجة الصومال هتهانم فينا وش الصومال كويس هويا إذا وحدها صوماليا أبا إيده وحدها صوماليا
ها waxaan lulii maxay ahayd xurriyo Soomaalkii madowga fahma ya sama haliya Soomaaliya waxay ku taalaa bariga Geeska Afrika waxay xuduud la tahay 3 wadan oo kale ah Ethiopia, Kenya iyo Djibouti waxay kala xad la leedahay badweynta Hindiya iyo Badda Cas. Soomaaliya waxaa lagu qaybsaday shirkii Berlin 1985 kaas oo lagu qaybsanayay qaaradda Afrika waxaana qaybsaday dawladihii reer Yurub iyo dawladda Ethiopia. Soomaaliya waxaa jeediya Berlin waxaa Soomaaliya ma qaad Berlin la jeediy. My Berlin lagu kala qaybsaday Soomaaliya. sida doosha amal ma jare. Shirka Berlin macna wadamo kala qaybsaday Soomaaliya shan qayb loo kala qaybsaday. Okay ana fahmay. Aan wili wax ma fahmay ani maskaxdayda waa yartay. أنا بس كحلو ويدا لكن هاي بقية علي وايه بالله وكيف ليش عاملين مالك السلام يا سلامك بعدين همبري عند الله هاي تاريخ الحلوة والله الشيء كله لكن يا قبل يا نسول دياري مناسبة waxaana ku halqabsanaya Cabdiqaadir gudoomiye hore Karafa oo runtii markas taba diyaar wax kasta wanaagsan oo loo qabanayo Soomaalida in Allah leeyahay xorriyada u soo dhimatay waqooyi iyo koonfur ba Ilaahay u naxariisto inta xusaysa damiir kale ee ka soo qayb gashay hablo iyo gabdhana waxaan in soo dhaweynayaa khayr Allah idinsiyo waxaana ku bilaabayaa adagabay abdi oo bariyahan waan igaan dayne damiirkayga wataan ka jaray ama dareenkiye dariiqisa wataniqin dawga loo maro watan dhihnaan jire sida las daroorimaya dibaan ka yaabi aakhira darane mantana dadaalkan arkiyo xornimo loo dabaan degay iga duuba Allah watan wax badan dadahayn jiray مفتي أو علمي قميل كمرنا يا الله برهدن داري لسهره أما سدويسا ويدي ردو رأيتا قمت هيدا سماقاني وهذا دير سدي من مرتدا إذن كنت اغسيو الله ومن ددوينا كيمي رقيو كبدابا سلام دبسان قرسيو أفضل داري أمرتيو قبيد داركيدي ورب أرارتك رداديو تنما قاني هلكا قبيد الدنو نسوتاي بانودا الدقية أفريكا ذكري شرعي الضرات بيدك حطوريني أنسي عران كنتول مونيوا تهرهني 10 مليون بانك قمغان وتبادي هي تلياني قرقو توكتي تونك لغو لاي تعدي يحوق رقي تابك اللوحي لي وبيا لرقي لغو تنتي لغو تلابي تانجي يحوق رقي تبدا لو شيكتي تاكل محيني الدولة تاقي روعنا توكل على الله بيودين تاكل دي ليني تولودي تاقين بطاقو حلقين أنا أقارنه مرة جود كأجل جيل كسومالينو قارنيمو حسوسين وحول بوحنا دكتور سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحنا مغنيا أنت أنا نقول ويا راحي يقوي إن أنقرنا إنه ما أنت واحد أنا يرد لكن سير أي سنقرني ما أنت ومالين ما أنت جهنو يمالين تاس وهاي لحنكي إن فرق وين دحري maalintaas waxaa loo ooynayay oo loo ilmeynayay oo loo agtaagnaa oo dhig loo daadiyey in qarannimada gumaysiga la iska tuuro maantana waxaan aasanaynaa meydad dhiig baa daadanaya oo aysan daadinayn kuwii maalintaa daadinayay oo ay daadinayaan Soomaalida dhexdeeda kaga soo go'do ama ay maartay meeshii markii Soomaali isugu timaado ama meel ay isugu timaado aad ka dhigto nin
soomaalinimadu ay ku weyn tahay wadaninimadu ay ku weyn tahay haddana wixiisii marka uu ka baxo meesha qabiilkiisii dib ugu noqo Soomaaliga ay soo saaraya kamarada macnaha ka dambeeya maaha inaad ugu dareensiinayo wax iska tustusnima dalka aad leedahay lagu tusaya qarannimada lagu tusaya ehelnimada lagu tusaya jiritaankeenu wuxuu ku jiraa inaanu isqabsano gacmaha isqabsano dalka su'aasha gabadha wiilka uu maanta weydiinayay oo idaacadaha dhan la soo saarayay oo lixdankii la dhaahayay dalka yaa iska leh oo gumaystaha loo dal lahaa caawi taagan tahay war dalka yaa iska leh war dalka yaa iska leh waaba aamusantihiin baadinkaaba qiraya inaan cidna lahayn maba la hidine wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu soomaaliya ha noolaato بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan hambalyahan ugu jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Finland iyo ummadda Soomaaliyeed oo joogta adduunka intiisa kale iyo kuwa wadanka jooga maanta waa magaalada Helsinki xarunta Kanada waxaan ugu dabaaldegaynaa sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegtay waqtigii Soomaaliya xornimada qaadatay ama Soomaalida ah ay aad la doonayeen inay aad u dabaaldegaan oo ay damaashaad iyo waxyaalo badan ay muujiyaan aniga halkan uma soo istaagin in aan lecture dheer aan jeediyo maalinta xornimada la qaatay laga sheegay waxa way dadka Soomaalida aqoon weyn markaas ma jirin aqoonta jirtay waxay ahayd aqoonta jirtay waqtigaas waxay ahayd aqoon yar oo ku kooban aqoontii laga bartay dadkii Talyaaniga ah oo meeshaas joogay dadkii ajnabiga halkaas joogay inta soo galeen waxay sameeyeen waxbarasho kooban oo ku salaysan ayaga sidii ay rabeen waa la damaashaadaya waa la bodboodaya dhalinyarada inay ciyaaraan way carruurta waxa waa inay damaashaadaan maalin walba raba in la damaasheedo laakiin bas waxaan rabnaa inaan halkan isku xasuusino in waxbarashadu ay tahay muhiim u tahay meel kastaba inay muhiim u tahay marka ugu horeyso horta hore waxaa ammaan leh ama mahad leh ilaahay ayaa mahad leh nabigeena maxamed ahaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaato waxaa meeshan xafladan qabanqaabiyey labadan urur ee isu tagay Kanada iyo Satanbaria waxaan leeyahay marka ugu horeyso way mahadsan yihiin howl adag ayay qabteen waana dad ku dayasho mudan marka labaad war badan meeshan looma baahna waxaan leeyahay caawo kale sidii la qaaday markaan idin xasuusiyo waxaa ka mid ah maanta 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 waa maalin weyne maanta 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 madaxeeba maalin maanta 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 waa maalin weyne maanta هذا مركز لباد حسوس بدن ما جرت وحا كلو جرو وبابريي بلعسن أروري بعسن مالك waxaan idin leeyahay Soomaaliya midnimo gacnaha isqabsada walaala naqda wada jira xaasidnimada iska daaya waxaan idin leeyahay tanazula hal eray muhiim waaye rasuulkeena Maxamed ahaa xadiidku nooga tagay waxa kamid ahaa walaalka u hiili hadii uu gardaran yahay وهيلي هدي أو قدريها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبيلك
dalxiisi loo yimaad wixii ku daranka durgo midnimada dubiga dalxiisi loo yimaad wixii ku daranka durgo midnimada dubiga